waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaas lagu magacaabo Monolight. Haddaba waa kan filinkiisa daawo oo taxadar. filimku wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo la tusayo xayeysiintaas ku saabsan gaari loo yaqaan Monolight. gaarigan ayaa markaa lagu abaalmariyay inuu yahay gaariga ugu ammaanka badan adduunka. inta kadib goobta waxayna tusaysaa iyadoo isu bedeshay in la isticmaalayo markaas gaarigaas. gabadhan waxaa la dhahaa Sandra, waxaana la socda markaas wiilkeeda yar kaas lagu magacaabo David. Sandra waxay qorsheynaysaa markaas inay aado guriga sodexdeed. dhanka kale ninkeeda uma imaan sabab la xiriira markaa shaqadiisa, halkaas markaa in muddo ah markaa ku maqnaa. gaariga ay wataan waa mid markaas casriyeysan oo xitaa go'aamin kara miisaanka rakaab kasta oo saaran. intii lagu guda jiray safarkaas dheer, Sandra waxay isku dayday markaas inay wacdo ninkeeda, waxayna markaas degan tahay hotel markaas u dhow madaarka uu ka shaqeeyo. mana cadda sababta markaas uu ugu imaan waayay muddo bil ah, laakiin Sandra waxay kaliya markaas og tahay ninkeeda inuu ku mashquulsan yahay markaas shaqadaas. waxayna bilowday markaas safarkeedii, wiilkeeda yarna waxay markaa ku mashquulinaysay telefoonkeeda. sheeko dheer kadib, Sandra ayaa markaa timid mid ka mid ah kaalmaha shidaalka taasoo ku taala markaas suuq yar. waxayna David ka bedeshay xafaayadii mid ka mid ah masquulaha markaa ku yaalay suuqa yar. inta kadib waxay David markaa u soo iibisay cunto fudud. si lama filaan ah waxaa jira markaa shisheeye u eg markaa inuu doonayo inuu jabsado gaariga Sandra, laakiin Sandra si fudud ayay markaa uga gudubtay xaaladda iyadoo markaa si fudud isticmaalaysa telefoonkeeda gacanta. halka kuma aysan joogsan, xitaa ma aysan dareemin in David agteeda joogo, waayo waxay ku mashquulsanayd markaa ilaalinta gaarigeeda. meel walba ayay eegtay ilaa ay ka shakiday markaa in qofka shisheeyaha uu ilmaheeda qaatay. Sandra way argagaxday markaas, laakiin waxaa soo baxday in ilmaheeda uu la socdo markaa saddexda hablood ee taagan musqusha horteeda. iyadoo aan rabin inay dhibsadaan saddexdan hablood, Sandra waxay isla markiiba fuushay oo kaxaysay gaarigeedii iyadoo adeegsanaysa habka fall mode. habkan wuxuu ka ilaalin doonaa rakaabka dhammaan noocyada khataraha ah iyo dhibaatooyinka markaa ka jira dibadda baabuurka. markii ay baxeen ayay sii socdeen guriga saddexdeed oo fogaa awgeed. si markaa caajiska ay uga baxda, Sandra waxay markaa wacday saaxiibteedii yaraanteed taasoo markaa kasoo baxday hodheel markaa u dhow garoonka. waxaa kaloo kasii yaabadan, Sandra waxay dareentay markaas in saaxiibteed uu la joogo markaa saaxiibkeed. si kale haddii loo dhigo, Sandra ninkeedu wuxuu xiriir la yeeshay markaa saaxiibteed. Sandra aad bay u niyad jabtay markay timid guriga sodexdeed, xitaa ma aysan lahayn wax niyada oo ay gudaha ku gasho. dhanka kale ninkeedu uu ka qaban waayay telefoonka isagoo markaa iska dhigaya inuu mashquulsan yahay. waxayna go'aansatay inay aado isaga oo ay ku ogeyd markaas dhankaas iyo garoonka diyaaradaha. masaafada uu jirana ma aha mid kaftana, waxaana weeye 320 mayl ayay markaa ka fogtahay magaalada. Lilith oo ah mid markaa caqli badan waxay ku wargelinaysaa Sandra in markaa wadada ay ka jirto shil halis ah. There's an accident on the freeway. Delays to be expected. sidaa darteed Lilith waxay markaa u soo jeedinaysaa inay qaadaan waddo markaa ka baxsan wadadan intii ay sugi lahaayeen wadadani markaas intay furmayso. ugu dambeyntii Sandra waxay martay markaas wadadaas, inkastoo xaqiiqdu ay tahay inay dhif tahay markaa dadka isticmaala. waxayna noqotay habeen, mana aragto wax deegaan ah, waxaan ka ahayn qayb markaa korontada oo ku taalay meesha meel ka baxsan. hadda Sandra aad bay u walwalsan tahay, waxayna naxday markii ay jiidhay deero taasoo markaa wadada ka gudbaysay. isla markiiba dibadda ayay u soo baxday si ay u hubiso xaaladda deerada, waxayna kaga tagtay ilmaheedii keligiis baabuurka dhexdiisa. xaaladda marka lagu jiro, cunug yara ayaa taabanaya markaas application kaasoo ahaa mid markaa gaariga lagu maamulo. iyadoo aan ogaanin Sandra, David wuxuu bilaabay markaas inuu dhaqaajiyo habkii fall mode kaasoo aan wada ognahay in habkani markaa ka ilaalin doono rakaabka dhammaan noocyada khataraha iyo dhibaatooyinka ka jira markaa baabuurka dibadiisa. ugu dambeyntiina wiilkii yaraa waxaa ku xirmay markaas gaarigii. hagaag Sandra markaa hadda wax badan ma samayn karto maadaama David uu yar yahay uusanna waxba fahmaynin. si kastoo markaa ay wax ugu sheegtana ama ay ugu qayliso, David maaha mid haba yaraatee fahmaya. iyaduna awood kale markaas ma lahan in markaa ay qayliso maahaane. si lamida ay gaarigana garaacdo. nasiib darro, David ayaa markaas naxay, wuxuuna sameeyey in markaas uu tuuro telefoonkeedii. ma qiyaasi kartid xaaladan. isla markiiba waxaa soo wajahday dhibaato weyn hooyadan maadaama cunugeediina uu gaari kaga xirmay. si lamida waxaa ugu sii darsamay cidlada markaa ay joogto iyo wiilkeedii oo gaarigu markaa ku xirmay. mana awoodo markaas inay ka furto gaariga. waxaana arkaynaa markaa iyadoo isku dayday inay jebiso markaa muraayadda. markay awoodi weyday inay jebiso, waxay u dhaqaaqday jihada ka horeysa si bal markaa ay usoo fiiriso xaaladaha markaa saldhiggan korontada. wax badanna markaa kama aysan filaynin sababtoo ah meeshan qofna ma joogo. laakiin nasiib wanaag waxay heshay markaa qalab waxtar u leh sida toosh iyo bir ay isleedahay markaa aad ku jebisid gaariga. si lama filaana markii ay ku dhowdahay markaas inay ka baxdo saldhigga, waxay ogaatay markaas in wax daba socdaan. wuxuuna ahaa markaa xayawaan duurjoog ah oo isku dayay markaas in waxyeelo u geysta iyada. si kastaba ahaatee waxay gaadhay markaa gaarigii. badbaadada gaariguna aad bay u fiicnayd habeenkaas, waxayna seexatay markaas gaariga dhakadiisa. maalinnimadii ayaa la gaaray. Sandra waxay ka kacday markaa hurdada, dabadeed waxay ogaatay markaa in xaaladda David ay xun tahay. kulaylka qorraxda ayaa markaa sidoo kale sii kululaanaya,
isagoo sheegaya adeeg markaa ku xiran gaariga in heerkulku markaa sii kordhayo waqti ka waqti. Runtii aad bay u xun tahay xaaladoodu, wadadan ay joogaanna hal gaari markaa ma soo marayo. Sandra ma aysan haysan markaa wax kale oo ay samayso ilaa ay go'aansatay markaas inay socoto iyadoo raacaysa markaa jihada wadada inkastoo aysan weligeed meeshan marin. waxaana kaloo kasii daran inay baxdo markaa cunugeeda oo gaariga kulul ku jira. waxay socodkeeda sii wadaba way daashay laakiin ma aysan joojin inay sii wado socodkeeda. nasiib wanaag waxay si lama filaan ah u heshay webi kaasoo ku yaala markaa meesha ay maraysay. way ka cabtay sidoo kalena way ku maydhatay wayna soo baxday waxayna soo martay 10 kiiloomitir iyadoo kasoo leexanaysa markaa wadadaas dheer si markaa ay u hesho caawimaad. ugu dambeyntii waxay aragtay markaas garoon diyaaradeed oo hore waxayna ku aragtay markaa diyaarad meesha taalay. dhanka kale heerkulka markaa gudaha gaarigu aad ayuu markaa usii kululaanaya marba marka kasii dambaysa. Sandrana waxay usii socotay markaas dhankaas iyo diyaaradda inkastoo aysan cidina joogin markaa garoonka. kadib waxay ka heshay markaa diyaaradda dhexdeeda galoon kaasoo kamid ah markaa noocyada fudud iyo cabitaan sidoo kale 2 taayir oo markaa diyaaradeed. waxayna isla markiiba dab qabadsiisay 2dii taayir si uu u samaysmo markaa qiiq dheer oo laga yaabo markaa in qof dareemo oo xaggeeda soo aado laakiin ma aysan dhicin. taas kadib waxay soo qaadatay markaa galoonkii waxayna soo martay webigii oo ay kasoo dhaansatay markaa biyo si markaa ay ugu qaado baabuurkeedii. markii ay gaartay baabuurkii David wuxuu markaa u muuqdaa mid suuxsan wejigiisuna wuu casaaday. Sandra waxay rajaynaysaa in haddii dusha sare ee gaariga ay ku shubto biyaha uu qaboobi doono markaa gaarigu. intaas waxaa dheer way sii waday markaas iyadoo ku garaacaysa markaa gaariga birtii markaa ay kasoo qaadatay diyaaradda dhexdeeda. dabcan wax natiijo ama aysan arag ilaa haddadaas waxayna u malaynaysaa in ilmaheeda aan la badbaadin karin oo uu ku dhintay markaa baabuurkan. si kastaba ha ahaatee malaheedu ma ahayn markaa mid saxa oo David wuxuu markaa muujiyay dhaqaaq yar kaasoo dhaqaajinaya markaa farihiisa. iyadoo xaalku sidaa yahay waxaa markaa kusoo orday Coyote kaasoo markaa daba socday habeenkii iyadoo hadda markaa kama baqayso in markaa uu qaniino Coyote-kani maadaama ay rabto inay la joogto markaa ilmaheeda. Coyote-kan wuxuu markaa u yimid in markaa uu cuno meydkii deerada. dhan kale gaarigii Sandra ayaa markaa dib u socday. nasiib wanaag waxaa jiray markaa gobol yar oo dhagaxa kaasoo joojiyay markaa gaariga dhaqaaqiisa. halka markay xaaladdu marayso Sandra waxay keentay markaa fikrad kama dambaysa inkastoo fikradani guul iyo guul darraba ay tahay markaa 50-50 alashan inay ku guuleysatana ay dhici karto inay ku guul dareysatana markaa ay dhici karto. isla markiiba waxay burburisay dhagixii hoos yaalay taayirka baabuurkeeda iyadoo adeegsanaysa markaa bir. kadib markii ay ku guuleysatay si ula kacay markaa baabuurkeedii ugu riixday togan markaa ka dambeeya iyadoo og markaa in cunugeedu markaa ku jiro gaariga dhexdiisa. wax badan kuma qaadan kadib markuu gaarigii ku dhacay gunta hoose markaa toga isla markiiba waxay u daadegtay hoos si markaa ugu dhawaato ilmaheeda ku jira markaa gaariga dhexdiisa. waxaana soo baxday sida aan aragno in fikradii Sandra aysan ahayn markaa fikrad khaldan sababtoo ah gaarigii ayaa markaa si toos ah isu furay markii uu dhulka ku dhacay iyadoo aan waqti ka lumin. Sandra ayaa caawisay markaa isla markiiba wiilkeedii iyadoo markaa ka siibtay jaakadii uu watay oo qaboojinaysa jirkiisa. si kastaba ha ahaatee Sandra waxay awoodaa markaa inay wado mar kale gaariga. isla markaa Sandra waxay rajaynaysaa in tiknoolajiyada gaarigu ay ka caawin doonto markaas koridda markaa xagga sare. hagaag dhib weyn kuma ahayn gaariga si la yaab leh ay markaa u awooday inay dib markaa ugu noqoto xagga sare. dabadeed waxay soo qaaday markaa wadadii ay ka timid. dhammaadka filimka Sandra iyo David waxay yimaadeen markaa cisbitaalka. nasiib wanaag David noloshiisii waa la badbaadiyey. si lamid ah waqtigan ayaa noqon doona markaa waqtiga ugu xun Sandra nolosheeda. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro si lamid ah muuqaalkan like saar si markaa dad badan uu gaaro.